بسم الله محكمة درجة كواد عيدمada qalabka sida waxay ku dhawaaqday xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaasha kala ah kow Farxaan Maxamed Samatar ina Safiyo Maxamed ku dhashay Galgaduud labo Cabdinaasir Dhaqana Xasan ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo saddex Abshir Maxamed Xaaji Buule ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasa Hablood labo taariikhdu markay ahayd 28 bishii tobnaad 2017 weerarkaas oo sababay khasaaro naf iyo maal leh waxaa ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 43 ruux oo kale dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Suhayb labo Cabdinaasir Dhaqana Xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Cabdixamiid Qoslaaye saddex Abshir Maxamed Xaaji Buule oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Yaxye ay ka hor cadeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel Naasa Hablood labo 28 bishii tobnaad 2017 eedeysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel Naasa Hablood labo markii uu weerar ku dhacay kadibna saddexda eedeysane oo u adkeysan waayay dagaalka ay ciidanka amnigu kula galeen gudaha hotelka ay u soo baxeen bannaanka hotelka iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen sidaasna ay ku dhex martay isrisaaseyn sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedeysanayaasha halka labada kale ay ku carareen guri ka ag dhawaa goobta sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedeysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira AK47 iyo bambooyin markay aragtay maxkamaddu marag muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedeysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii Naasa Hablood labo oo lagu eedeeyay saddexda eedeysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa 3 qori oo AK47 ah iyo bambooyin F1 ah maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeya maadaama ay yihiin dhalinyaro codsatay in la cafiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal kow Farxaan Maxamed Samatar labo Cabdinaasir Dhaqana Xasan saddex Abshir Maxamed Xaaji Buule ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta dadkii ku geeriyooday weerarka ay ku qaadeen hotel Naasa Hablood labo cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq